Assalaamu calaykum. Qisooyinka ugu la yaabka badan Qur'aanka Kariimka waana qisada Asxaabul Sabti. Waxayna ka mid tahay qisooyinka aan maqalno in badan ayna yar tahay dadka fahma runteeda. Waa kuma Asxaabul Sabti, allena ma u beddelay daanyaro run ah, muxuuna sidaas ugu sameeyey. Fiidiyogan waxaan idinkagu soo gudbin doonaa ama idinkaga sheekayn doonaa qisadooda oo faahfaahsan ee nala socda. Fadlan haddii ay tahay markaagii kugu horeysay, subscribe saar, gambaleelkana furo si fiidiyooda aan soo gelino aad ula socotid. Mahadsanid. Waxaa la sheegaa waqtigii Nabi Daawud calayhi salaam waxaa jiray qoom reer Bani Israa'iil ah ku noolaa tuulo xeebta u dhow. Allena wuxuu ku amray reer Bani Israa'iil inay Alle caabudaan isbuuc walba, maalinta Sabtidana ay u soo jeestaan cibaado ama ay u go'aan, aysanna ku mashquulin shaqooyin kale. Run ahaantii reer Bani Israa'iil waxay maalintaas doonayeen inay Alle caabudaan. Bilooyin kadib waxaa soo ifbaxay caasinta Alle subxaanahu wa tacaala tuulada dadka ku nool, wayna soo bateen. Allena wuxuu doonay inuu ciqaabo ama imtixaano iimaankooda. Wuxuuna ku imtixaanay imtixaan ilaahiya si uu u arko qofka kufriya iyo qofka rumeeya. Imtixaankaas Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu aaga dhigay in kalluunka xeebta uu yimaado maalinta Sabtida ah, ayagoo tiro badan, waxayna ku dawaalanayeen wejiyadooda hortooda ayagoo tiro badan, mana aysan awoodin inay u dhowaadaan sababtoo ah Alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku amray. Maalmaha kalena waxay u soo baxayeen kalluumaysi, mana aysan helayn kalluunkana lama arkayn maalmaha kale ee isbuuca, wuxuuna soo baxayay Sabtida oo keliya. Badankoodna dhaqaalahood wuxuu ku xirnaa kalluumaysiga, sababtoo ah tuulada ay degan yihiin ayaa waxay u dhaweyd xeebta. Imtixaan cajiib ah ayuu Allah subxaanahu wa tacaala ku imtixaanay, maxaa yeelay maalintay u baahan yihiin ma aysan helaynin kalluunka, maalinta laga xarimayna kalluunka xeebta ayuu iska baashaalayay ama iska dawaalanayay. Waa imtixaan Alle ilahay cajiib ah. Shaydaan lacnatullaahi calayhi shaqadiisa buu bilaabay, wuuna waswaasiyey, wuxuuna ku yiri, waxaan doonaynaa inaan kalluumaysano maalinta Sabtida ah, waxaadna samaysataan shabaqa malaayga lagu dabto, maalinta Jimcahana tuurta wixii ku soo dhaca, maalinta Axada soo qaata. Waxaa sidaas sameeyey mid ayaga ka mid ah. Malaay ayuu soo dabtay, wuuna karsaday, wuuna cunay. Waxaa u soo carfay dadka tuulada deganaa malaayga, way weydiiyeen intee ka keentay. Wuxuu u sheegay waxa uu sameeyey, waxaana raacay qayb ka mid ah dadka ilaa ay soo bataan. Waxayna tuuranayeen shabaqyadooda maalinta Jimcaha, waxayna soo baxsanayeen maalinta Axada, waxayna u maleeyeen Alle inay khiyaameynayaan. Waxaa joogtay tuulada qayb ayaga ka mid ah oo ficilkaas diidan, wayna u tagayeen qofkii ficilkaas sameynaya ayay u digayeen, waxayna ugu digayeen ama ugu dardaarmayeen cadaabta Alle subxaanahu wa tacaala. Waxay u kala qaybsameen dadka ku noolaa tuulada 3 qayb. Qayb amarka Alle subxaanahu wa tacaala diiday kuna dhaqmaya shaqadaas xun, qaybna Alle kuma caasin, waxayna dadka kaga digayeen inaysan Alle ku caasin. Qaybta saddexaad Alle kuma caasin, qofkii waxaa sameynayana wax kama gelin, mana la hadlayaan, mana ka reebayaan ficiladooda. Waxayna dhihi jireen dadka ka reebaya, maxaa idinka galay qoomkan, Alle ayaa ciqaabaya. Waxayna ugu jawaabayeen inuu waajib ku yahay, waxaana laga yaabaa inay anfacdo qayb ka mid ah oo Alle ku caasiyeen, laga yaabee inay ka laabtaan. Waanadaasna wax kama soo qaadin, shaqadooda halkay joojin lahaayeen way saa'idiyeen, waxayna ku tartamayeen macaasida Alle subxaanahu wa tacaala iyo sharta. Alle wuxuu ku soo dejiyey ciqaab, wuxuu ku ciqaabay ayaga wax aan hore qoom loogu ciqaabin ilaa ayaga mooye. Habeenada ka mid ah ayagoo dhan wuxuu u beddelay daanyeer, way isbedeleen, waxayna u badboodayeen sida daanyeerada oo kale, mana aysan awoodin inay socdaan ama hadlaan sida dadka kale. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri, قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
waxay isu bedeleen alle awoodiisa daanyeer, waxaana ka xaaraantoobay naxariista alle subxaanahu watacaala. Wuxuu ka dhigay wax xun, waxaana ku bilaabatay dhibka iyo shalayti waxay sameeyeen darteed. Kuwa alle rumeeyey una digi jiray kuwan wax shar ah kuma dhicin. Waxaa la dhihi jiray kuwan qofka walaalkiisa kama dhex garan karo daanyeerada. Ibnu Cabbaas isaga iyo aabihiisa Allah ka raali noqday wuxuu dhahay, ma aysan noolaanin waqti dheer, Allah subxaanahu watacaala wuu halaagay. Sidoo kale Daxaaka iyo Ibnu Cabbaas radiallahu canhu waxaa laga wariyay inuu dhahay, ma noolaanin 3 maalmood wax ka badan, waxna maysan cunaynin, waxna maysan caawinin qoomkaas. Cabdullaahi bin Mascuud radiallahu canhu waxaa laga wariyay, nin ayaa nabiga u yimid, naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee, wuxuu ku dhahay, rasuul allow, daanyeerada iyo doofaarada kuwa la bedelay miyaa, ama kuwa hadda aan arkayno la abuuray? Nabi sal lla lay wasalam wuxuu dhahay, wax la bedelay ma jiraan daanyeerada iyo doofaarada, ayaga ka hortood qoomkan hadeertan aanu ka sheekaynayno ka hortood ayay jireen. Fadlan video like saar si ay inoogu noqoto dhiirigelin aynu usoo badino muuqaalada caynkan oo kale ah. Wixii talo iyo tusaale ah dhanka hoose ee faalooyinka lagu qoro inoogu reeb. Tan iyo muuqaalka xiga intaynu ku kulmayno insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.